Bismillahirrahmanirrahim. Maanta waxaan rabnaa inaan maanta halkan ku barno mid ka mid ah apps-ka lagu duubo screen capture-ka oo shaashadan haddii aad tusaale ahaan PowerPoint ama slide aad sharxiisa arday u sharxiisa kaleeto inaad u sharaxdid ama haddii wax kale oo ugu baahan tahay kaleeto screen-ka hadaa app sida aan hadda duubayo kale u baahan tahay inaad wax duubtid waxaa halkan ku duubeynaa maanta OBS ayaa la yiraahdaa Google waa keli kartaa OBS Google kaasoo warsa OBS Studio ayaa leedahay oo ku subxay download OBS Studio download ayaa leedahay waraadina waa kana oo soo download karaysanaysa hadduu kugu jirin kana download installer ayaa leedahay wuu ku soo degayaa suuyaa intuu soo degayo gudaha ayaa ka fiirinaya inuu soo degi karo download this waa kana hadda next kadib next wuu ku soo degaa waa soo fureynaa January marka qofka bilaaw yahay waxyaabo ugu horeeyo uu fahmi weynayo waxa kamid ah sida loo isticmaalo shaashadan oo kaleeto uu koreyso oo kaleeto waa mugdi marka sida maxaa sameynaysaa marka sources-kan ayaa imaanaysaa waxa ku dhufanaysaa calaamada plus-kan waxa ku dhufanaysaa screen capture ayaa dhehaysaa magac u baxso ama screen okay dheh okay ayaa leedahay waa ka saadan okay shaashadan kore ayaa soo baxday wax kale hadaa u baahan inaad ku soo degto salaam qofka duu jecel yahay inuu game ciyaaro oo duubo oo ku soo baxsan waxa dhehaysaa ayadana game capture kaas ayaa ku dhufanaysaa okay ayaa leedahay inta waa ka tusaale ahaan haddii aad si kale wax dhigi kartaa aad mid kale inaad ku soo dirtay display capture labaad ku soo daraa tusaale ahaan okay dheh meeshan tusaale ahaan wax iigu jira haddii laba xab yihiin hadaa rabo inaad labadan display camal mid aad daleedo display capture 2 oo kale tada inaad rabo daleedo waxa leeyahay right click remove ayaa leeyahay yes hadaa rabo game display capture-ka hadaa jecel inaad hormariyo ayada ayaa hormarinaya kaas game capture hadaa game capture rabo inaad daleedo kaas click ku soo reebtana ayadana waa sameey kartaa remove ayaa leedahay labo waxaa raba audio-ga inaad wax yar ka tuso audio-ga saan ayaa leedahay calaamadaas aad ku dhufanaysaa properties ayaa ku dhufanaysaa meeshaas use device timestamps waxa laga rabaa inay check saarto calaamad saxda tan labaad sidoo kale properties ayadana check inay ku saarto use default waxa uu imaanaynaa marka controls waa meeshan inta ka isticmaaleed start streaming start recording start virtual camera iyo studio waxyaabaas dhan marka rabtiin aad duubto start recording ayaa ku dhufanaysaa settings-ka imaano wax yar ayaa settings-ka fiirinayna settings-ka general luqadda ayaa ugu horeyso Urdu Italian Danish Dutch English iska dooro meesha theme-ka ani dharka ay tahay dharka ayaa jeclahay waxa ka dhigi kartaa gray light range system wax mid ka dhigi kartaa output-ka soo baxaya waxa ani 2500 ay meeshan ii tahay 160 waxyaalahaas waxa ka bedeli kartaa codka sidoo kaleeto meeshan waxa la rabaa desktop audio default inay ka dhigtay video oo kaleeto 1366 ay yahay aniga iyo 1092 sidaas ay aniga waxa ka bedeli kartaa accessibility ayaan kale waxa meeshan process property priority waxa la rabaa inaad ka dhigtid normal ayadana normal ayaa ka dhigtay kadib waa isticmaali kartaa start recording ayaa dhehaysaa si uu duubna inta ku kulmi doono cashirka xiga oo ku saabsan OBS Studio waxaan leeyahay soo dhawaad waa mahadsantiin channelka subscribe noo saaro bilaad tawfiiq